وين سلام صاحبي راح halkan kasii wadi doonaa taxniin oo socda magaciisa Alaas Samar taxniin waxa ka sameeyay 5 qayb hore fadlan hadii soo daawan channel dib ugu laabay soo daawo inta muuqaal guda galin waxa ku xasuusinaya in muuqaal galin uu saartay saaxiibna ugu cusbaadiya subscribe soo channelka gambaleelkana furo qaybtana qaybtiisii lixaad soonga shaqada joogto beeg waxa bilaabay inuu soo xasuusiyo wixii habeenkii markay cabsineed ee ku hadashay soonga ayadoo indhaha taagaysa ay soo xasuusanaysaa waxayna ku dhahaysay aniga waa soonga waxaan kugu caawin doonaa inaan projectan dhamaystirto waxayna qaadan doontaa hal isbuuc aniga habeenii maalin waan kugu caawin doonaa hadii loo baahdo inaan kulaad miisaaniyad ku bixayso mashruucan adiga darta ay wax u sameynaya kadib amaha ay qabanaysaa waxayna ku dhahaysaa adiga mar walba maxaa u martaa hortayda waxaan ku sheegay fahan aniga kuma jeceli ee ma iska baxdi beeg asna madax ayuu xuluxaya adna soon waxay ku dhahaysaa inay baxdid maarta beeg wuxuu ku dhahayaa maya meela u socdo malahan kadib garabkiisa ay ku seexanaysaa waxayna ku dhahaysaa hayga tagin meesha iskaagu rida ayadana soon markay soo xasuusto waxa soo dhan madax ay qabsanaysaa waxayna is dhahaysaa maxaa sameeyay aniga kadib madax ay isgaraacaysaa beeg markay shaqada u dhamaato iska baxaya kadib injineerka ay qolka soo baxay wuxuu ku dhahayaa soon warqada muhiim waay hadii aad helin ogolaansho bari koronto ma helayno marka beeg u geey soon warqada ay soo qaadaysaa waxay imaanaysaa xafiiska beeg ayadan marina beeg wajigiisa aragto kadib waxa arkay beeg saaxiibkiisa ayadoo u tagaysa wuxuu ku dhahayaa beeg shir ayuu ku jiraa iska sug soon waxay ku dhahaysaa aniga mashquul ayaan ahay mana suugi kari marka adiga u geey warqadaha ayuu dhiibaysaa shirkadana waxa joogsiyoon markay is arkaan waxayna wada fadhiisanayaan meel kafee lagu cabo wuxuu ku dhahayaa ilaa goormee ay waxaan sii soconayaan saaxiibkiina ayaan ahay kawarna hadaa idin dhex galo oo dadaalkiina aan xaliyo fursadii ugu dambeysay siiya oo si fiican isku dhageysta labadiina si aad arrintiin xal ugu heshaan kadib soon ayadoo ka fikrayso arrintaas waxaa laga soo wacaya xafiiska markay timaado waxay arkaysaa asxaabtiisa oo meesha joogaan oo miiska tirtirayaan waxayna ku dhahaysaa beeg dhaawac weyn ma soo gaaray ayaga waxay ku dhahayaan dhaawaciisa waa dhaynay laakiin dhiiga ma joogsan kadib gurigiisa ayuu ku laabtay soon waxay fiirinaysaa miiska waxayna arkaysaa inuu si u dhiig baxay kadib soon ayadoo carraysa ay guriga imaanaysaa kadib waxay soo gelaysaa qolkiisa waxayna ku arkaysaa in meesha uu yeel faashado dhiig leh ayadoo walwalsan waxay wacaysaa beeg waxayna weydiinaysaa xagee joogtaa isagana wuxuu ku dhahayaa guriga uu soo dhawahay kadib irida ayuu kusoo galaya wayna kusoo ordaysaa waxayna ku dhahaysaa waa maqlay inuu dhaawac kusoo gaaray oo dhiig baxday meel weyn maa kaa qalantay beeg wuxuu tusaya fartiisa wuxuuna ku dhahayaa wax weyn ima gaarin saana maxaa u soo carartay kalima waxaa maqashay inuu meel yar wax iga qaleen soon ayadoo indheeda ilin ku taagan tahay ayay geesaa iska fiirinaysaa iyadoo isboojeynayso kadib beeg labada daan ayuu qabanaya wuxuuna ku dhahayaa aniga sababtan darteed ayaan kugu jeclaaday kadib wuu shuminaya kadib maalintii xigta soon waxay sii ku balaminaysaa maqaayad waxayna ku dhahaysaa waxaan u baahanahay inaan xiriirkeena inta ku ekeeno oo aan kala tagno labadeena sidoo wax ku dhaw waan ku faraxsanahay inaa waqtigan oo kale inaa go'aan qaadan kartid oo noocaan ah si toos ah adigoo kala labeynaynin soon waxay ku dhahaysaa igaraal noqo sidoo wax ku dhaw isku daynay inaa laba qof waaweyn camal inaa xiriir u samaysano haddii ay suurtagali weysay dhib ma lahan waxyaabo badan ayaa rabay inaan sameeyo markaan hel qofaan isjecelnahay soon waxay ku dhahaysaa waxaas maxaa kamid ah ii sheeg sidoo wax ku dhahay aniga darteeda mu samaynaysaa kadib wuxuu keenaya meel lagu dalxiiso wuxuuna ugu soo labisay dharkiis kooleeda wuxuuna ku dhahayaa qof kale waa noo wacay soon waxay ku dhahaysaa laba lamaana kale maa u wacday kadib meesha waxa uu imaanayo beeg soon waxay ku dhahaysaa kan maa wacda leh sidoo waxay ku dhahayaa kan waa saaxiibteeda iyo hor ninkayga afduubtay iyo aniga iyo adiga ayaa dalxiisay marka nabaday aan dalxiiskana bilaabanay kadib waxa uu bilaabanaysa dalxiiskii damaashaadka meel walba oo meesha kamid ah way tagayaan kadib marka uu soo dhamaado dalxiiska ayagoo banaanka taagan beeg wax ku dhahayaa si fiican ay u kala tagteen waxaan rajeynayaa inaan wada kulmi doono hadda kadib anagoo asxaaba saddexdeena aniga kaliya waxa ugu filan soon inay faraxsanaato oo aan arko qosolkeeda sidoo waxa ku dhahayaa beeg adiga waxaa tahay qof waxgarad ah waxaan idin rajeynayaa inaad isku faraxsanaataan labadiina kadib waxa uu imaanaysa soon waxayna ku dhahaysaa weli meel kalaa noo dhiman ee nabada kadib meesha sawirka ay tagayaan waxayna wada gelayaan sawiro xasuus ah saddexdooda habeenkii makal gaar si waxa uu imaanaysa soon waxayna u siinaysaa hadiyad bombala waxayna ku dhahaysaa bombalan sida u heshid lacag badan ayaa kaa khasaartay anigana waxa xooga saaray sidaan kugu keeni lahaa sidoo waxa ku dhahayaa kan anoobi egyahay bee waxaa kaloo kuu sheegi lahaa markaa i weydiisay waxaa ku qoray warqadda markaa ciyaarin ciyaarta bingo warqadda waxaa ku qoray geedka lagaa jaray magaciisa waana kiiska ku wada kulnay markii ugu horeysay beeg asna wuxuu ka ag beeray geedka geeskiisa geed cusub beeg waa mid fudud asane haddii aan adiga dartaada aan dagaal kula geli lahaa beeg si aan kuu lahaado waan guuldaraysan lahaa sababtoo ah dagaal iga weyn oo 17 sano jirsaday soon waxay ku dhahaysaa waxaa taa qofkii ugu horeeyay aan anagoo isku faraxsan aa ismac salaameeno kadib waxay soo taagaysaa gacanteeda wayna u mahad celinaysaa sidoo salaame wuxuu ku dhahayaa aniga in la dhaho waa mahadsan tahay iyo raal noqo waxaan jeclaa qofkii inuu dhaho waa mahadsan tahay dhinaca kale beeg uu sugay markay u timaado wuxuu ku dhahayaa maxaa sugeynaa soo baxnaba soon waxay ku dhahaysaa wax yar meel ay wada fadhiisano markay jirdiinkooda fadhiistaan soon waxay niyadiis ka dhahaysay waa inaa wax walba u sheegtaa beeg waxayna ku dhahaysaa beeg aniga waan ku jeclahay marar badan waa isku day inaa ku naco oo aan iska fogeeyo mar walbo waana ku guuldaraysan jiray naceebkan kuu qabo ayaa wuxuu isku bedeli jiray jaceyl waa inaa gacmaha isqabsanaa gacantiisa ay soo qabsanaysaa waxayna ku dhahaysaa mar labaad iyo mar saddexaad waan ku jeclahay kadib way soo dhawaanaysaa wayna shuminaysaa maalintii xigta waxaa arkaynaa soonga isku soo diyaarsanay aado oo booqad qabriga hooyadeeda beeg asna uu soo diyaariyey beeg wuxuu ku dhahayaa gabarna hadaas wada jir ah u booqano qabriga kadib gacanta ay soo qabsanayaan markay wada yimaadaan qabriga soon ayadoo fiirinayso wax dadka soo boqday ee qabriga ugu tageen waxay ku arkaysaa hooyadeeda cuntada ay jecleed inuu meesha uga tagay aabaheeda waxayna geesaha ka fiirinaysaa aabaheeda inuu meesha weli joogo waxayna soo xasuusanaysaa in mar walba aabaheeda uu keeni jiray hooyadeeda cuntadan soongna mar walba way ka daadin jirtay hooyadeeda cuntadaas maadaama uu dhibaayo maalinta jinaasada hooyadeeda si dhuumasho ayuu ku yimid laakiin soon way aragtay laakiin isagoo kasii dhuuntay ayada kadib beg ayaa weydiinaya wax ku dhacay soong waxay ku dhahaysaa waxa uma jiraan xaafadda aan ku laabano kadib waxaa arkaynaa siyoolo la joogta siyong waxayna tusaysay nashqadaha arooska asagana wuxuu ku arkayaa sawirka labadooda markuu lugihiisu fiicnaayeen siyoolo markuu arko waxay ku dhahaysaa markaan waxaad waqti fiican waana qurux badnayn labadeena siyong wuxuu ku dhahayaa markaan waxaa qof kale waana markii kood aan kuu soo bandhigtay inay isguursano adigna waa iga ogolaatay kadib markaa shil galay waxaa igu
igu timid isbitaalka markay igu aragtay xaaladdan ku sugnaa anigoo wiljir saaran oo aan labadeedii lugood aan waayey adigoo isxakamaysa intaa ooyin lahayd niyaddaa ii dhistay waana ii qosashay anigu si aad kuu dhibay ilaa hadda igama niyi jabin waana ii qosashaa intaa halaan kusoo dhibi lahaa marka waxaan go'aansaday inaan kala tagno noloshada hore u sii wado siyool ayadoo ilmeynaysa waxay gacanta qabsanaysaa siyoon waa iska fujinayaa gacanteeda wuxuuna ku dhahayaa markaa shilka kale kadib aniga adiga waxaa ku ballannay inuusan ilmeyn labadeena qof ka mid ah waad ku mahadsantaha wax walba ii samaysay haddana waxaa la gaaray waqti aan bixi lahaa siyoon markuu ka tago siyool ilintaa kasoo daadanayso maalintii xigtay beeg waxa fiiskiisi joogo waxa uu imaanay siyoon waxayna ku dhahaysaa hooyadaa waxay rabtaa inaad si degdeg ah u kuluntaan beeg waxa ku dhahay adiga hooyadey arrimaha aniga shakhsigii ah maxaa idin daba dhig labadiina yoon waxay ku dhahaysaa waxaa ka helnay iimayl waaxda baarta buuraha wax qusay walaalkaada beeg wuxuu furaya iimaylka markuu arko beeg si degdeg ah ayuu boorsidiisu xirxiranayaa kadib waxa uu imaanay song waxayna ku dhahaysaa maxaa kugu dhacay safar maa tahay beegna wuxuu ku dhahayaa shaqooyin ayaan rabaa inaan kasoo xaliyo Ameerika song waxay weydiinaysaa projectigii ma u socotaa beeg wuxuu ku dhahayaa maya mashruucaas uma socdi wax kaloo ka muhiimsan ayaa u socdaa song waxay ku dhahaysaa goormee waqtiga bixaysid beeg wuxuu ku dhahayaa isla beri diyaaradda ugu horreysa Ameerika aadayso ayaan qoranahay kadib beeg diyaaradda ayuu raacay asagoo walsan ayuu baxay maalmo kadib song waxay imaanaysaa xafiiska beeg waxayna fiirinaysay waxyaabihii hore uu sameeyey kadib waxa uu imaanaysa yoon waxayna ku dhahaysaa fasax la'aan inaad soo gasho ma aan xafiiska beeg maxaa ma wacdid miya song waxay ku dhahaysaa aniga xataa ma waqti soo laabanaya asaga yoon waxay ku dhahaysaa waxaas inaad naga dhaaftid cabitaan isla cabnaa kadib waxay bilaabayaan cabitaan wada cabaan yoon waxay ku dhahaysaa song mar hore ay ugu dambeysay inay cabitaan qof saan ula cabo kadib waxaa arkaynaa song oo ku cajistay guriga waxayna u xistay beeg kadib waxay go'aansatay inay tikit jarato oo ay ugu tagto Ameerika kadib waxay u qoraysaa email waxayna ku dhahaysaa waan ku sugay adiga waan ku xiisay marka aniga ku imaanaya Ameerika kadib song waxay soo qaadatay boorsadeeda waxayna timaaday airportka kadib beeg ayaa soo wacayo markay ka qabato wuxuu ku dhahayaa fasaxada sanadaha meeqa maalin ayaa ka istimcaashay song waxay ku dhahaysaa 5 birile haddana waxaa jooga airportka beeg wuxuu ku dhahayaa hawa kuu jeeda ee geeskaas soo fiiri markay fiiriso waxaaba jooga beeg kadib wuxuu ku dhahayaa waa inaa laabanaa song waxay ku dhahaysaa wax xageen u laabanaa kadib gacanta ayuu ka qabsanaya wuxuuna ku dhahayaa war ayaa laga helay walaalkayga song waxay ku dhahaysaa oo maxaa ka wadaa laba kaaga ma heshay beeg wuxuu ku dhahayaa waxaa laga helay waqooyiga Alaska waxaana u dhigaynaa tacsi kadib markay guriga kusoo laabtaan song waxay bilaabaysaa inay ku ilbaxdo beeg waxayna ku dhahaysaa adiga keligaa maa samaysa waxaas oo dhan ilaa hadda xataa qofna ma u sheegin miya beeg wuxuu ku dhahayaa anii marabin inaan ku murjiyo manahayn war la isku halayn karo waxaana helay email fara badan oo been ah inaa isaga la helay song waxay ku dhahaysaa marka waa inaa wax walba ii sheegtaa beeg wuxuu sheegay in walaalkiis lagu waayo buuraha Alaska 3 sano ka hor waana baafiyey kadib waxaa helay fariin badan inay jirto fursad ah inuu weli nool yahay kadib anuu alaabtiis baaraay adiga isoo wacay markaa kaa qabtay aniga walaalkiis ka dhigaayo waxaa ii sheegtay hooyadaa inay ku jirto qolka ICU-ga adoo ilmeynaysid daraad waxay soo gaar fariin ay soo dirtay waaxda baarta buuraha in buurta laga helay qof meed ah isla jaakadii uu xirnaa walaalkayga aniga wada kale ma haysan inaan rumaysto mooyaane marka adiga inaan murugta ayaan kuu diidanaa waana ogaa in laga daahay tacsida laakiin hadda tacsi macsalaamin aynu samaynaynaa kadib waxay imaanayaan beeg hooyadiisii aabihiisa kadib waxay tegayaan qolka beeg walaalkiis uu degnaan jiray sida ugu soo xasuustaan kadib waxay arkaysaa wiilkeeda sawirkiisa waxayna dhahaysaa markan caata ayuu ahaa wiilkayga markan wuxuu joogay buurta Himalaayo wuxuuna jeclaa cuntooyinka fudud ee Kuuriyaanka kadib waxay qaanad ka soo bixinaysaa baasaboorkiisa markay kala furto waxayna ku arkaysaa fiisooyin badan oo ku dhagan oo wadamo badan ku tagay waxayna dhahaysaa wiilkayga wuxuu ahaa wiil dalxiiska aad u jecel waqtin uma heli jirin inuu guriga ku soo laabto maalintii xigta waxay u dhigayaan tacsi waxaana ka soo qayb galeen asxaabtiisii yaraanta oo dhan siyool way adkaysan weynaysaa sayid ayay u ilmeynaysaa waxayna ku dhahaysaa adiga saa inaan nooga tagta ma ahayn waxay ugu dhihi jirtay xidigaa inaad tagno ayaan kusoo wareegsanaynaa balantii ma nooga baxda hadda maalintii xigta song markay hurdada ka soo kacday beeg ayaa jikada cunto uu diyaarinayay beeg wuxuu ku dhahayaa xal si fiican muu seexatay song waxay ku dhahaysaa maanta wejigaaga wuu ifayaa weli sidaada ayaa tahay ma isbedelin beeg wuxuu ku dhahayaa xal waa ku maqlay waa qarwaysay song waxay ku dhahaysaa taas macquul ma ahan inaa qarwo aniga beeg wuxuu ku dhahayaa runta ayaa kuu sheegooya waxaa ka maqlayaa codkaada qolkayga dhexdiisa song waxay ku dhahaysaa oo maxaa sheegaa marka ii sheegba hadda beeg wuxuu ku dhahayaa waxaa dhehaysay inaa anigii jeceshahay oo aadna ii xiista mar walbo oo aad noolaan karin aniga la'aanteyda marka inaa kaa taga ma ahan oo aan kaa fogaado adiga song waxay ku dhahaysaa hadalladaas anuu qoraya kuma dhehaynin ee anigaa jeclaystay inaa kuu sheego kadib waxay weydiinaysaa maanta meelna u socotaa iyoo soo labisatay beeg wuxuu ku dhahay balantii aan kaa qaado waa inaa oofiyaa kadib waxaa arkaynaa gudoomiyaha tuulada asagoo la hadlaya saxaafadda wuxuuna ku dhahay waa u jeedin mashruucii aan balan qaaday ee derbiyada xaafadda kuwada soo galay waddada in la dumiyo waana ku guulaysanay waadna u jeedaan inay qurxin ku socoto waana oofiyey balanqaadadii aan sheegay markii aan ololaha doorashada ku jiray beeg oo meesha joogay ayaa dhinacaas ka soo hadlaayo wuxuuna ku dhahayaa gudoomiyaha waxaa jira mashaariic badan oo xoog in la saaro u baahan kan kaliya in la isku sawiro looma baahno gudoomiyaha wuxuu ku dhahayaa waan isku dayay inay xoog wada saarno kulligooda beeg wuxuu ku dhahayaa looma baahno labadii maalin ugu horeyso in show la dhigo si daacad ah waa in dadka loogu shaqeeyaa gudoomiyaha wuxuu ku dhahayaa baashii nageerehe Cameroon ay nagu socotaay marka waxaas si hoose ugu wada hadli doonaa si bareefad ah beegana uu soo dhawaado wuxuu ku dhahayaa waxaan waxa uu samaynaysid ma la dhihi karaa maadaama mashruuci soolarka ee dadka diideen jiyan ayaa soo boodaysa waxayna ku dhahaysaa haddii aad cabasho qabatid waxaa soo mari kartaa waddadii loogu talagalay marka cabashadaada email ahaan u soo dir beeg wuxuu ku dhahayaa jiyan looma baahno in meelo wax lagu sawiro waxaa loo baahan yahay wax qabad la taaban karo waa in la dhageystaa dadka cabashadooda gudoomiyaha wuxuu ku dhahayaa okay waxaa duutuuladan quseeyo anna waxaan ka qabanayaa kadib dhinaca kale beeg wuxuu daba jiray qof daba dhigta mashruuci iskoolka oo social media been abuur ku faafinooyo sidoo kusoo qaban lahaa kadib wuxuu kaamirada ka fiirinayaa ninkii goobta wuxuu kusoo qori jiray ninka meesha lahaa wuxuu ku dhahayaa waxay la tahay ninkan wuxuu noo ahaa macaamiilkeena laakiin weliba wejigiis ma arkin waqti dheer ayaa kasoo wareegatay inuu inta yimaado kadib markuu xaafadda yimaado beeg wuxuu video call iskugu wacay odayaasha tuulada waxayna ku tashanayaan qofka beenta faafinooyo in shabaq loo dhigo kadibna lasoo qabto waxayna ku balamayaan in habeen dambo ay howlgali doonaan ayagoo wada jir ah kadib markii habeenkii la gaaro beeg iyo song
odayaashu way kala qaybiyeen. Mid wuxuu ku dhuuntay guriga korkiisa geed ku yaalo, mid koo kale wuxuu galay caag qashinka, laba kale waxay ku dhuunteen haan meesha taalay, mid kale wuxuu iska dhigay shaqaalaha nadaafadda. waxaana lagu yidhi diyaar ma tahay? asagana wuxuu ku dhahay haa diyaar ayaan ahay. kadib dhagaa fiiladiisa ayuu si qaldan iskaaga bixiyey, ay ku wada xiriirayeen kulligooda. beegii Soon ayaga meel kale ay ku jireen. Soon waxay ku dhahaysaa waxaan u malaynayaa inuu tuugas imaan doono caawa. kadib waxaa imaanaya ninkii la gaadayay. markay arkaan beeg ayaa lasoo sheegaya, wuxuuna ku dhahayaa ninka waa yimid. ninka wuxuu maraya beegii Soon meesha ku dhuuminayeen gadaashooda, kulligoodna way arkeen. kadib ninka markuu yimaado iskuulka wuxuu bilaabay inuu sawir ka qaado iskuulka, wuxuuna u diray sawirka qof kale. kadib wuxuu wacayaa qofka, wuxuuna ku dhahayaa waxay isu diyaarinayaan inay mashruuc marka la bilaabaan siday u qanciyaan dadka maalgelinooyo. waan kuu soo diray caddeemaha oo dhan. markuu geesaha fiiriyo wuxuu arkayaa qof weel qashin ku dhuumanayo. kadib orod ayuu jabsanayaa. odayaasha meesha qorinayeen meeshay ku jireen ayay ku dhegeyso. kadib beeg ayaa dababursanayo. odayaasha iyagoo dhacdhacayaan ayaa meesha kasoo baxayaan. odaygii kale waxaan hor u ahaayo heestiisa ayuu iska dhegeysanayay. ninka waxaa daba dhiganaya beeg sidoo cabaar uu dababursanayay. beeg wadada ayuu bedelanaya. ninkii wuxuu isleeyahay kan waa kaa daba haray maanta, waana badbaaday. beeg ayaa gadaal ugu imaanayo, wuxuuna ka qabanayaa qoorta. beeg wuxuu ku dhahay waan ogaa inay imaanaysid, waana ku sugaya maanta oo kale. ninka wuxuu isku dayayaa inuu baxsado. beeg wuxuu ku dhahayaa ha isku day inaad baxsatid, haddii kale eedadooda ayaa kusoo xasuusinaya. halkaas ayay nooga egtahay qaybta 6. ha ilaawina muuqaalka like saartid. saaxiib nagu cusub haddii aad tahay subscribe soo dhig channelka.